السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي هبون داوديل waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka beeraha iyo xoolaha oo hadaayo kale aad ka daawataan telefishinka dawladda Hirshabelle. Toddobaadkan barnaamijku waxa uu idinkaga imaanayaa magaalada Jowhar ee caasimadda dawladda Hirshabelle. Waxaan ku soo qaadan doonaa wareysiyo dhinacyo taabanayo oo aan idinkaga diyaarinay qaar kamid ah ama xubnaha matala iskaashatada beeralayda Howlwadaag. Iminka waxaan la fadhiyaa gudoomiye ku-xigeenka iskaashatada Howlwadaag Muriidi Maxamuud Axmed waxaana uu ka sheekeynayaa بالحلقان iyo diyaar garowga iskaashatada ay wato iyo sidoo kale xaaladda guud ahaan ee iskaashatada beeralayda Howlwadaag ku soo dhawow Muriidi barnaamijka beeraha iyo xoolaha telefishinka dawladda Hirshabelle. aad u mahadsantahay magacayga sida aad sheegtay waxa Muriidi Maxamuud Axmed waxaana ay gudoomiye ku-xigeenka iskaashatada Howlwadaag. sidaan ogtahay gobolka waxa ka dhisan dhowr iskaashatooyin waxaan ugu mahadcelinaynaa wasaaradda beeraha oo kaalin aad u weyn ka qayb qaadatay dhismaha iskaashatooyinka sida ogtahay gobolka Shabeelle Dhexe wuxuu caan ku yahay beeraha dawladda dhexe kadib wax iskaashatooyin ma dhisneen dawladda Hirshabelle waxay ku dadaashay in beeraha beeralayda Shabeelle Dhexe inay mideyso iskaashatooyin sameyso sida ilaa hadda waxa dhisan ilaa dhowr iskaashatooyin marka anaga hadda waxaan nahay iskaashatooyin oo ay maalgelinayso dawladda IHB iyo FAO iyo sidoo kale NGO STS dhowr iyo 10 kan iskaashato waxaan qaadanay tababaro oo beeraha ku saabsan naga caawisay hay'adda dawladda IHB oo sida macnaha beerta loo tabco sida looga hortago cayayaanka iyo waxyaabaha beeraha saameeyo ilaa adiga dhowr tababaraan qaadanay dawladda IHB waa u mahadcelinaynaa sidoo kale FAO waxayna siisay abuur xilliga hore sidoo kale NGO STS asna wuxuu siiyay adiga macna taageero oo macna wixii aan u baahano iyo aqoon oo naga caawiyo iskaashatada aan ka hadlayo waxay ka dhisan tahay tuulada la yiraahdo Timire magaceeda waxaa la iskaashatada Howlwadaag adila waxay kooban tahay ilaa 209 xubnood hadda active ah inkastoo ay kasii badan tahay sida aan ku sheegayo markii la iskaashato waxaa la dad midoobay oo wax isku darsaday si ay u soo saaraan horumar. waa gartay waa maasantahay waxa tahay gudoomiye ku-xigeenkii iskaashatada Howlwadaag ka jira magaalada Jowhar ee gobolka Shabeelle Dhexe iskaashata ahaan xilligan bal muxuu qorshigiinu yahay maadaama loo diyaar garoobayo xilli roobaadka guga oo ka curtay qaybo badan oo kamid ah gobolada dalka Soomaaliya. horta hadaan aan Jowhar inta badan waxaan aafiyay macnaha fatahaad webiga sanadkii hore waxa waaye inta badan beeraha lama tabcin webiga soo fatahay beero badan oo baabashay marka waxa dhacay sicir bar waxa waa abaar oo saaid oo iska daba dheeraatay ilaa 6 bilood roob la'aan jiro marka galeyda saaid u qaash marka xilligan waxaan jecelnahay inaan galeyda xoog saarno hadda diyaar garow aan ku jirnaa beerihii waa falnay adiga waxa waaye waa wixii waa diyaar garow fiican ku jirnaa marka waxaan rajaynaynaa inaan galeyda xoog saarno. waa gartay maxaa islaadahay xilligan way ku soo beegmi kartaa in galeydii la beero iyadoo aan ogsoonahay xilli roobaadka guga in inta badan beeralaydu ay qorsheeyaan in dalagaasi galeyda ay beeraan waxaad isleedahay way sababi kartaa oo baahi jirta waxaa isleedahay macnaha xilliga hore oo gu'ii hore anaga tacab fiican ma sameynin oo wiyana saameeyay oo waxaa beer badan waa go'an wax yar oo beeraha oo adiga aan wiy arkin oo kala galeyr ka baxday galeydi markii waa nabad guurto waxa waaye hadda suuq waa ku yartahay hadda waxa waaye koombadu waxay sii maray adiga waraan $1 ka badan tahay waxa waaye adiga 20 ku ama ku dhowdahay marka hadii maadaama uu sicir bar yimid galeydana ay shay ugu muhiimsan ay tahay nolosheena oo dhowr meel u isticmaal marka ida number 1 xoog saarna insha Allah. waa gartay dhul beereedkaas ay noo sheegtay tuulada Timire ee duleedka dhanka waqooyi galbeed magaalada Jowhar ku yaalo intii loo eegyahay cadad ahaan markii wallahi adaa qiyaasto waxa waaye hadda waa dhul aad u weyn waaye hadda aan qiyaasi karin tuulada Timire waxa waaye inta badan waxa waaye waa beero u badan tahay marka waxa dhul oo yar ma waa dhul aad u weyn marka waxa waaye hadii aan tacabno waxa laga yaabaa waxa waaye Jowhar dhammaan u faanta. waa gartay bal iskaashato waxaad u midoodeen in wax soo saarkii beeraha aad kordhisaan taas way jirtay oo leedinku ogsoon yahay maamulka Hirshabelle uu idinka gacan siiyo iyo waliba hay'adaha kale ee ku shaqada dhanka beeraha waxaad isleedihiin waad soo kordhin kartaan sanadkan hadii sida hadda maamulka uu wado dadaaladaasi lagu caratuuriyo isla markaa wax looga qabanayo fatahaada lagu xakameynayo bal
dareen ahaan ka beeraley maadaama gudoomiye ku-xigeenkii iskaashatada wadaagna aad tahay maxaa isleedihiin sanadkan soo kordhinaysaa haddii sanadkan aan ka badbaadno biyo baxadan insha Allah waxaan rajaynaynaa in horta gobolka Shabeellaha Dhexe horta inaan badal ka dhajino وبعدين أنا رجيهن حتى أنا قبضة كذا سيد موضوع كذا دوفينه سيد قبضة كذا درس كنا أنا ودوفينه أنت إن شاء الله سرجيهن. بس الحين إحنا لو شكتين ديار جرو وشرو بيلدين والبيرات كأي ديارنا يا إذن كعاونة يا أبورك دلقي سي يلا بيري. أبورك وحنا عاونة دو فاو. أبورك أنا عاونة سو كنا أنا وحوا ديار جرو كجرنا وحوا حلي beeraadka lagu jira maxaa kale oo ka soo saartaan idin weheliya dalagaasi galeyda ash horta waxyaabaha soo saarnaa badan yihiin waxaa kamid ah galeyda waxaa kamid ah sisinta digirta bariiska adiga waxaa dhowr nooc qudaar xataa waa tacabnaa marka waxaa waaye aniga waxaan soo saarnaa waa badan yihiin marka hadda laakiin muhiimadda koowaad galeydan waa insha Allah markastay dhul beereedkaasi xagee ka waraabtaan maadaama aad sheegtay in dhul beereedkii iskaashatada uu yahay dhul aad u baaxad weyn isla markaana xilligan diyaar garow loogu jiro waxaan ka warabnaa kanaalka Kiligoomi leera markastay maxaa caqabadaha xilligan idinka haysta dhanka beeraha markii loo wallahi hadda waxa caqabad oo hadda aan arkeen ma ma sha Allah hadda muhiimadan ugu weyn waxa horta weeg waa weegana hadda waa naga caratuuray marka waxa sanadkan insha Allah barwaaqo rajaynaa waa gartay webiga Shabeelle gobolka Shabeellaha Dhexe wuxuu ka maraa degmooyin iyo deegaano badan halka idinku markii loo eego dhul beereedkiina uu ku yaalo diyaatiin iskaashato waxa jira sidoo kale iskaashatooyin kale oo idinka garab shaqeeya oo gobolkan ka jira ma jiraan xiriiro idinka dhaxeeya iskaashato ahaan marka laga soo tago xifaaltanka iyo tacabka aad ku wada jirtaan dadaalka iyo halganka la wado ma jiraa tashiyo kale aad ka samaysataan in idinku laftirkiina aad iskaashataan oo maamulku aan lagu sii dayn howlaha socday idinku laftirkiina aad qashada isku dartaan si webiga loo xakameeyo insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan wixii oo adeegdii inaan iskaashano oo aan midowno oo aan macnaha oo wax walba oo macnaha awoodina aan iska kaashano insha Allah goorma la aasaasay iskaashatada Huludaag la iskaashatada Huludaag waxa la aasaasay hadda macnaha dawladda FB iyo FAO gacanta ku qabteen 2019 iyo xilliga soo shaqeynayeen waxa jira bandhigyo lagu qabtay magaalada Jowhar wax soo saarka iyo waxyaabaha aad ku soo bandhigayseen maxaa cashar oo idinkaga baxay bandhigyadaasi la qabtay maadaama dad kala duwan goobta isugu yimaadeen waxaan ka faa'iidnay maadaama bandhig la qabanayo waxa ka soo qayb galay dad kala duwan sida ogna waxa ka soo qayb galay kambaniyal sida kambaniyasha daawooyinka oo kale dhirta sida ogta waxa waaye waa marmar waa jirtaa daawo u baahan tahay marka waxaan naga caawin macnaha hadii cudur aragto qofka macnaha markuu daawo keeno kale wadanka waa yaqaan macnaha wixii sabab kale markii yimideen wala sheer gareyn waxaan waxa waaye waxaas aragnay marka wixii daawadana macnaha lagu xaliyaa marka wax badan ka faa'iidnay waa kartay muriidi ahaan markii loo eego ka shakhsi ahaan waxa taa qof Jowhar ku dhashay gobolkan ku soo hana qaaday wax badan xoogaal ah sidee baad isleedahay fikir ahaan oo lagu xakameyn karaa webiga Shabeelle webiga waxa lagu xakameyn karaa isku duubnaan oo macnaha inaan maamul lagu haleyn macnaha waxa maamulku waxa mashquulkiisa iska badan waxa meelaha majilcan ama meelaha waxa arkaa beerley waa marka waxaan jeclaan lahay qofka beerleyda haduu arko meel jilcan oo kale in maamul aan la sugin waxa waaye qofka intuu tabartiisa uu xageeysan karo inuu geystaan karo insha Allah waa gartay ma qabtaa aragti ah in la hirgeliyo biyo xireenadii gobolkan oo lahaa sida FAO iyo sidoo kale Sabuun waa aad muhiim u tahay sababtoo xilligan oo kale markuu webiga uu biyo keeno kale hadii uu shaqeyn lahay kanaalkaas FAO kale wuxuu naga caawin lahay webiga macnaha xawaa la neefin lahay biyana hoos u dhicin lahay webigaas markii uu xawaa guranay gadaal lagu dir lahaa waxa muhiim inuu noo yaqaan qaab nooceeya islaadahay waa lagu hirgelin karaa wallahi waa hadii lagu dadaalo macnaha iska kaashtaan macnaha dawladda gobolka Shabeelle iyo sida FAO kale dawladda iska kaashtaan waa hirgelin saamisana iskaashata ahaan Huludaag ma qabtaa caqabadaha ay ka caawinayaan beeraleyda ee la xiriira cayayaanka jira horta waa jira waxa waaye markasta abdar tacabtid badarka waxa waaye boqolkiiba 90 markasta ma fiibnaan waxa waaye caqabado ay ma karaan waxa waaye galeyda baahla ku dhici karo marka waxyaabaha hadii aragno kale wixii aniga aan aqoon u leenahay kale waa iska boofina wixii kale aan fahmin aqoon-yahanada la tashana beeraleydu maxay u raacdaa xalka u dambeeya oo buufiska aad isleedahay ma jiraan talaabooyin kale aad qaadi karteen oo aad ka gaabiseen waxa waaye adiga qof wuxuu yaqaano oo isticmaala anaga dhaqankeena waxa wixii aniga aan soo barno oo ama dadka naga horeeyay
aan ka fahmi leeyahay waxaana marka insha Allah waxaan rajeynayaa dad aqoon-yahan noo soo baxay barnaamijkaas naga caawin doona insha Allah waa gartay talaftirkeedu waxa qaadateen tababar oo idin siisay hay'adaha beeraha ku shaqada leh waxyaabaha ay idin bareen waxa kamid ah waxyaabaha inaga bareen waxa kamid ah sida ognahay waxa waa dawladda FB hadda ka soo qabto dawladda FB waxay naga caawisay qaybta oo macnaha qasaaraha yareynta markuu dalagga baxo sida ognahay waa galeyda aan soo gurno kale galeyda waxa waa la shiidaa waa la qalajiyaa marka waxa jira cudur la aflatoxin oo galeyda ku dhaco marka waxay naga caawisay macnaha galeyda wixii tababar aan ku qaadan waxa kamid ah galeyda iyadoo qoyn inaan la xareyn macnaha galeyda markii iyadoo qoyn la xareeyo waxa ka dhasho cudur la aflatoxin markasto oo lagu xareyna waxa galeyda waa halaa baahalay wax baa simaana marka waxyaabo muhiim ah ka qaadan waxaas ka muhiim waa gartay hadda waxaad is leedahay maadaama diyaar garowgii xilli roobaadkuuba uu jiro beeraleyduna ay aad ugu diyaar garoobeen haddii ay isku helaan biyihii xareedda iyo webiga bal gugan maxaa laga filanayaa insha Allah waxaan filaynaa badar fiican inuu soo bixi doono insha Allah bal tartanka kula tirkiina qayb ayaa ka tihiin bandhiga soo socda la rajeynayo in sanadka kale soo socda horaantiisa la qabto howlwadaag waxay la tagi doontaa howlwadaag waxay tagi doontaa wax dadka indhahooda qanciyo fiican soo saarno ma santahay insha Allah wayahay barnaamijka beeraha iyo xoolaha ayaa daawanaysaan daawadayaal qaybihiisii dhexe ayaanu isla soo gaarnay waxaanu maanta ku wareysanaynaa halkan mid ka mid ah iskaashada beeraleyda ka jira gobolkan Shabeellaha Dhexe gaar ahaan magaalada Jowhar waa iskaashada beeraleyda howlwadaag ka mid ah iskaashatooyinka wax soo saarka beeraha ku midoobay isla markaana ka shaqeeya waa sidii loo dabooli lahaa baahiyaha ka jira gobolkan ee dhanka beeraha ku soo dhawow magacaaga adoo ku bilaabaya bismillaah waa mahadsantahay magacayga waxaa la yiraahdaa Faadimo Cabdu Sangaab waxaan ka tirsanahay iskaashatada howlwadaag deegaankana waa Timire alxamdulillaah waxaana beeraley waxaa mataqaanaa aan soo saarnaa sidii galeyda sisinta digirta bariiska qudaarta qaybaheeda kala duwan sida koostada karootada ansalaatada yaanyada marka gobolkaanuna waa gobol dheelitiran oo ahaa jiray maadaama ay beryahan dambe gaabis dhacay caqabadooyin sida webiga marna daad uu keenayo marna uu guraayo markuu daadka keeno dhibaato imaanaysa biyo horta lagama maarmo haddana haday waara dhaaf noqdaan inta webiga ay karkaarada jibiyaan ay dalagii jaraan na wareeray leedahay haddii haddana ooba webiga dhanna gurane waa dhibaato u imaanaysa beeraleyda xoololeyda webiga wuxuu ku qurux badan yahay kanaaladii culayso badan iska jireen hadda laakiin hay'adda maxaan ku raadaya FAO WFB SDS dadaalo dheeraad ah wadaan mahadaha ka gaarto aad iyo aad ay mataqaanaa inoo garab qabteen kanaaladii waa noola qodooyaa maxaan ku raadaya webiga laftirkiisa meelo badan oo iska buuxiye waxaa jiraan oo bacaad bixisaan u baahan yahay marka webigu hadduu buuxo biyaha dusha uu ka shubaa laakiin hadduu god ku socdo jadwalkii iyo loogu talagalay iyo sida dabiiciga ilaahay u abuuro u bixi lahaa dhibaatada marka na haysata horta waxay ahayday waxaan ku raadayay daadadka roobabkii oo iska galab noqdeen hadda alxamdulillaah waxaa lagu jiraa xilli roobaada lagu jiraa diyaar garowga beeraha maxaan ku raadayay gugiya hadda mataqaanaa beelo badan ka curtay annaguna hadda diyaar garoobaan haynaa sidii aan u soo saari lahaynay maxaan ku raadayay dalageeni muhiimna ay noogu tahay annaga waxa waaye maadaama aan nahay dad Soomaali ah haddana inaan mataqaanaa galeydeyna iyo digirteena iyo aan cunno yaan jeclaalahay laakiin bariyahan dambe sidii mataqaanaa hay'adii waxay leeyihiin gobolka abaara ka dhacda baahi ay jirto waxa la keenaa bariisna anaga nama baahi tiro waxa waaye qadiin qalbiniga yaal dhaha oo micnaheedu tahay inay kuugu jirto maxaan ku raadayay fuustooyin galey kula taalo qalbigaagu habiya tahay ilmaadu waa ku guursan karaan mataqaanaa ii sheeg adiga baahi kama baqaysid marka hadda fuusto galey kuma jirto galeydu waxay maray koomba 17,000 ay maray
mataqaanaa marka anaga waxaan rabnaa in nagala kaalmeeyaa sida noola sheega haddana waa rajeeynaa annagana dadaalo badan aan samaynaynaa ilaahayna nala garab galo wixii kaleetood waxaan leenahay haddana iskaashatooyinka waxaan ugu baaqaa 10 iskaashato oo gobolka Shabeellaha Dhexe ka howlgash waxaan ugu baaqaa iskaashato ma kuftaan haday kuftane ma kici weyso iskaashatada waxaan rabnaa inaan is ogaano kulamo dheer aado iyo iska warqab aan sameeyno si aan mataqaanaa xilligan wixii iskaashatada magacahooda iyo nambaradooda la aqoonsado mataqaanaa suuqa la isku jibinin wax la isla qabto hawshaas yaa aniga horta waxaan ugu baaqi lahaa iskaashatooyinka إن شاء الله تعالى أنا وإلهي كرجينا إن باهذا وقبل باهي لقوم أقولني باهذا نقبحه. أقرتي حمي في فرعون وحد كتاعي هالوذاك. إسكاشت هذا حل جان كم يدودين. بل كورن حائدين قرشة إن سنة كان حل الرباط كوجات كجفة إذا ستان وتكبرتان البراتك. وحد إن هاي ستو دبعتها أنكوش جاي إن هاد قليد أي جباب سكتها وضنك. قليدنا وحواي نورشة. أقول له تيرسيان. وحال ربع مركا إن قلي سو صارنا دقرتو كم مرنا محاكور هذا إشياء قدار تصيدو كلاتوت وقرشي إنه جرتا هذا قلي هذا تعبت واحد كلون هذا أباهنته قلي هذا ما أنت كرسته أو على جسه وحأباهنته كوستدي يعني هذا كلون له مركا إن شاء الله تعالى قيبك كلاتوت وحتى وحاج جيران أو ضد متقانا فوكس كو حصاران راشين كلير ضد إصلاة طبعا واجران قدار يا بيرها قال لي إذا يدقرت بريس كان كمرني أسجن والله سمايا مركا ولو أنا بريس أنا سمينين بريس كل باتو داوين تربط البيو يوحور بقى مركا أنا هالفوضين حربنا بيرتا إنا منطقة وح أنكو أدنى كسميسنا مركا سودو إن شاء الله إن هذا البدن يهول يران ودنا إن شاء الله. ما كرتي وما سنت هاي بل دلق بيرات وصالة مركي قلي اللي جوبير. هذا اللي يرى إذا يهول بدن. يهول بدن. طبعا إسكاش ده واحد لو سمية واحد هاي إن هول بدن أي كقبطان وقبل كان وحسو صار كيس السيل عي إن يصونوا ليان استمر كان واحد لو ترتنسين يو دقموين كهير شبيلة ودن إسكاش توين كجرا وسيد له هالها هرمرة إن دلك أما لبدن قبل بقى هير شبيلة كمية سلقوا يقاني. aragti ahaan wabiga sidee lagu xakameyn karaa wabiga waxa lagu xakameyn karaa horta sideeda banaanba qof inaan lagu tiirin oo cid hebel aan wax ka sugayna maamul wax ka sugayna inaan la dhihin qof walba inuu qaato ambadiisa garweyntiisa badiilkiisa baabuur haduu heli karo haduu wabigu buuxsamay in la bacaad bixiyo haduu karkaarada jibiyo meesha ka dabacsan oo ka jilacsan laga owdo waxaan wada qabsanaa fiican ma ogiyo maamul kaligiis wax ma qaba karo maamulka isagan inta tabartiisa uu dadaalay hay'aduhu tabartooda waa dadaaleen annagana waxaan ku leeyahay iskaashatooyinkeena waxyaabaha aan kulanka lagu sameeyo aan leeyahay waxa kamid ah dhibaatada dadka u nugul una jilcan annaga waay gobolkan wax soo saarkiisa annaguna anfaca dadka ku faani lahaayana wixii dhibaatada ay timaado aanfooyin annaga nagu habsanaya waxaan leeyahay iskaashatooyinku ham imaadaano ka sameeyaan maxaan ku raadaay wada tashi wax wada qabsi wabigan kaligiis iskama socdee qayb cida meel gees ka degta waa la isgaarsi karaa xilliga hore iyo xilligaana fiican sababta ay u fiican taana waxa waaye qof kasta mobile oo haysta meesha ciladu ka jirto la soo gaarsiina hadii la aado isla saaca la xir karaa marka aniga waxaan dhihi lahaay wabigana in la soo deeyo oo waxaan ku leeyahay lagu dhibaateeyo dadkana ma fiicna madow dadku anigu ma arkin dadku ay sheegayeen wabiga dad fasaxa la leeyahay dadka fasaxayana ma ahanin inay dadkan u danaynayo dadkan waxa deeqdo dhulkaana laga bagaa Soomaali kaligeed ma tabcato wax Kenya wax tabcato Uganda tabcato Zambia wax tabcato baahiyo dhibaatana kama jiraan anaga dhibaatooyinka qaasatan anaga haysto waxaan leeyahay waa waxaan anaga gacmahayna ku geysana wax qabadkuna waa ka gaabino marka waxaan aniga dhihi lahay oo ku boorinayaa on cod dheer ku leeyahay iskaashatooyinka waa maadaama aan hadda dad midoobay oo isla isu keen aan nahay
waa inaan wasnaqaana waa barna tababarana la siiyay abuurana la siiyay maxaan ku raadayay waxaana la siiyay daawooyin oo ma taqaanaa cayayaanka isaga cilno waxaan rabaa marka in la isu yimaado lana tashto la yiraahdo maxaa caqabada maxaan keenaynaa mid kale abuurka laftiisa laga tashto xilli gugeed iyo xilli dayraad waxa aad qofba wax soo saarayso laga tashtana aadamiin baaq oo qadar lahayd guud ahaan beeralayda iyo iskaashatooyinka kale ee idin lamid ah ee ka jira gobolkan waxaan dhihi lahaa beeralaydu horta qof kasto way dareemi kartaa dhibaatada haysato ninkan tabcan toogsiya u dambeeyay waxaan dhihi lahaa toogsiya tacabna yaa fiican tacab because dad qof toogto wixii ku siiso wax ku baahi tira ma ma ku baahi tira berrina haduu maanta doo ku siiyo berri ma ku siibahay never inuu ku siiyo laga ma yaabo ma santaa sida quruxda barnaamijka aan la wadaagtay aan kaga mahadcelinaya waxay xubin kamid ah iskaashato beeralayda hulwadaag oo ka jira iskaashatooyinka gobolkan Shabeellaha Dhexe markaana ku midoobay wax soo saarka beeraha sida quruxda barnaamijka aan la wadaagtay ayaanu si weyn uga mahadcelinaya aad u mahadsantahay waxay daawadayaal qaybii ugu dambeeyay barnaamijka beeraha iyo xoolaha telefishinka dawladda Shabeellaha ayaan isla soo gaarnay waxaa imika la fadhiya aqoonyahan kamid ah aqoonyahanada gobolka Shabeellaha Dhexe kaasi uu soo joogay barnaamijka aan ka diyaarinay iskaashato beeralayda hulwadaag isla markaana aragti talooyin iyo fikir baa kule barnaamijka aqoonyahan soo dhawo gobolka Kenya wax u baratay isla markaan laga doonayaa sidii loo wanaajin lahaa wax soo saarkiisa isla markaana sare loogu qaadi lahaa magacaaga noogu bilow adigoo barnaamijka soo dhawaanay waa ku dhawahay waa maasantahay midee magaciina Suleymaan Macalin waana ku dhawaatay TV Shabeelle aad aan ugu mahadcelinayaa barnaamijkan quruxda badan waana ku faraxsanahay inaan ka qayb galo barnaamijka tacabka iyo xoolaha ee ka baxa TV Shabeelle saacadahan oo kale waana ku dhawahay waa maasantahay Suleymaan waxaan goobjoog u ahayn arrimaha ay ka hadlayeen iskaashato beeralayda hulwadaag kamid yihiin caqabado iyo sidoo kale faa'iidooyin iyo sidoo kale wax soo saarkii dadaalada ay wadaan xilligan bal xagaaga baxay aragti ahaan maadaama aqoonyahanadii gobolka aad tahay dadkii looga baahnaa wacyigelintii iyo sidoo kale ka shaqayntii sidii wax soo saarkii gobolkan lagu yaqaan loo soo celin lahaa maasha Allah horta wax wanaagsan ayaga baxay waxaana soo baxday inay shaqo fiican hayaan oo door wanaagsan ay ku leeyihiin sidii uu laha jireenba oo iskaashatada ogtahay waxay kamid yihiin waxyaabaha laf dhabar ku ah wax soo saarka dalka sidoo kalena qayb ka ah in hoos u dhaco sicir bararka haday noqoto sidoo kale waxay qayb ka yihiin wax soo saarka dalka si guud ayaga oo muxuu ahaa maxallaha kamida waxyaabaha ugu horeeya ee la yiraahdo haday noqoto wax soo saarka dalka number 1 noqon karo haday noqoto heer dhoofineed iyo haday noqoto heer food security wax loo yaqaano intaba waana dadaalkaas ay wadaana iyo iskaashatooyinka gobolka Shabeellaha Dhexe guud ahaantood waan ugu mahadcelinayaa dadaalka wanaagsan ay wadaan waxaan ku leeyahay waa ku mahadsantihiin sida wanaagsan bulshada reer Jowhar ee caanka ku ah muxuu ahaa beeraha iyo wax soo saarka xoolaha aad aan ugu dhiirigelinayaa barnaamijkan waa loo baahnay iskaashatooyinka hadda 10 ana waxaan rajaynayaa inay noqon doonaan iskaashatooyin wax ku oo soo saara sidoo kale iskaashatooyin fara badan soo baxaan ayagana saasoo kale oo qaybo kala duwan leh haday noqoto xoolaha haday noqotay cuntadii haday noqotay warshado haday noqoto dhinac walba oo sector walba oo ku saabsan waxa asaaska u ah nolosha oo beeraha ku yihiin barnaamijkan sagaara qolada beeraha ama cooperative beerahane waa ku maasiin sida wanaagsan dadaalkooda u wadaan waana wax aan la dhaysan karin ama wax aan la inkiri karin dadaalkooda oo heerka maanta aan marayno oo hadoo noqdo mid wax soo saar ah hadoo noqdo mid horumarinta nolosha bay'ada deegaanka ah qayb ka yihiin dhibaatooyin way iska haystaan oo kulay fil walbo ama wax walbo lagu jiro maanta problem uu jira hadii noqoto problemada haystaan kulay way ka warameeno problemada waxa kamid ah saaran webiga oo kala markuu biyaha keeno kala fataadaha inay beeri ka go'aan oo kale ayagoo dalag u yaalo oo qarash galiyay oo koos fara badan ugu maqan yahay inay ka go'aan biyi inay ka go'aan beerihi beerahana hadii qofka waxa keenaysa qof webiga soo buuxsama hadii uu beeri ka go'aan inuu niijabo ilaa qofka mar walba oo biyaha soo buuxsama hadii uu salahayn ka hortag ama prevention uu salahayn waxa dhacayso in biyaha ka go'aan qofkan haduu maanta ka go'aan inuusan mar dambe uusan تعب جلين هذين تعب الجلين وانا قناه وواحد يعدونه وواحد عيسو بفرت يدعى مفقري وعبارة عيسو عبارة دي دعنا ولا قناه ووضع كان واحد بربع صدق كسان أوكي أنا وعلاضها هي عبارة كبدينه وقف كمركي ونلوش يسا وهستوح وعنا يوح وعبه وحاول مرينا إنه تاي إنه حتى وحوجه الرأي محل لها نلاش أساس كو ومدفر بدنه أم وحلي عن لايف كواليتي ويلان دونه مركا
dadaaladooda waan ugu sidee moralka beeraleyda webiga Shabeelle ay sheegeen in marna faa'iido ay ku qabaan marna khasaare ay ku qabaan balse waayihii u dambeeyay ama sanadihii dhawaa uu batay khasaaraha uu soo gaarsiiyo dhul beereedka xilliga uu ku fatahay ama uu jarayo waa in kooban laakiin biyaha inta ay ku jirayaan beeraha ayaa waxay qaadan kartaa sidee baad leedahay waa lagu xakameyn karaa aragti ahaan aqoonyahanadii gobolka aad kamid tahay waa sax waa problemka koowaad uu kamid yahay badanaa sida la sheego waa sida uu suu yahayna barnaamijkaas oo kale waxaa lagu xalin karaa fatahaadaha horta waa xilli ay dhacaan webigana xilli uu yimaadaa xilli waxaa jirta webiga uu eber yahay oo qalalan yahay oo macnaha ama biyo uu yareeyo xilliga biyo yareys ay jirto kale xilligaas in webiga lagu sameeyo carro bixin in webiga lagu sameeyo carro tuur in webiga la qodo oo webiga waxaa ognahay markasta uu biyo keenana waxaa ka buuxsama muxuu ahaa qoryo waxaa ku duma bacaad fara badan qarar fara badan ayaa ku duma webiga wuxuu noqdaa meel oo macnaha inta meesha jeex ahaaleed waadi ahaaleed ayay waxay noqotaa meel oo macnaha inay waxay noqonaysaa dhulka inuu ka sara maro macnaha in webiga koreeyo oo dhulka hoose maadaama uu ku jiro macnaha uu burayo kadibna waxa uu u baahan yahay webiga in la faara bixiyo sidoo kale ama in la qodo ama in carrada laga bixiyo marka haddii webiga xilliga uu qalalan yahay oo munaasabka yahay haddii iska kaashadaan iskaashatooyinka iyo wasaaradaha iyo hay'adaha ka shaqeeyo oo haddii iska kaashada arrimahaas oo kale waxaa dhici doonta in webiga la xakameyn karo waxaan la xakameyn karo ma jiraan waxaan hadda arkaysa fatahaad haddoo noqoto wuxuu ku yimaadaa dayacaaduu ku yimaadaa kuma yimaada macnaha wax ka baxsan macnaha caadada ka baxsan ama out of control ma aha wuxuu yahay waa la kontroli karaa haddaba sida dadaalada ay ka wadaan iskaashatooyinka iyo NGO-yada waxay wadaan in ay sameeyaan carratuur inay sameeyaan laakiin waxaan ka xumaa in xilli leyda ay sameeyaan maamba xilli oo aanan wixii ay noqdeen waxba laga qaban karin xilli waxaa jirta webiga haddii meelaha qaar ay baxsan waxba laga qaban karin laakiin waxaa jirta xilli wax laga qaban karo oo tahay wax fudud ay geli karaan saambaalayaashii hadda waxaa laga yaabaa in marka qaar webiga markuu bato inuu webiga oo badan iyo roob isugu darsamo waxaa laga yaabaa marka wixii inay jilcaan insan u tagi karin saambaale ama uusan tagi karin inta badan waxaa walaasi wada dowladda Hirshabeelle oo gacan weyn ka geysatay walaha carratuurka ee socda bal iskaashatooyinka hadda waxa ay sheegeen in sidoo kale cayaano ay jiraan cayaankaasi sidaba leedahay waa caqabadaha jiro xilligan taagan sidaba lagu hortagi karaa sidaba leedahay waa lagu xakameyn karaa wallahi horta cayaanada waa wax kamida ama pestiska iyo insectska waxay kamid yihiin waxyaabaha caqabadaha ku ah dalaga oo aad kan u naafeeya ayaga laftarkooda waxay leeyihiin control iskaashatooyinkana way ka caawdaan badanaa wuxuu kamid yahay waa factor kamid ah waxyaabaha factiska waxaana lagu badanaa waxay isticmaalaan traditional waa lagu daaweyn karaa sidoo kalena waxaa la sameyn karaa in chemical loo daaweeyo oo hadda waxay isticmaalaan buufin sidoo kalena qarar fara badan oo la sameyn karana ama method fara badan oo ayana lagu hortagana way jiraan tusaalaan in loo bedelo kale tusaalaan oo kale in tillage loo bedelo in crop loo bedelo in multiple crop la sameeyo ama cross section la sameeyo dhowr qaybood la sameyn karaa laakiin ayaga waxay isticmaalaan badanaa in buufin ay isticmaalaan buufintan waxaa laga yaabaa inuu kiimiko inuu leeyahay inuu cayaanka gubo waxaana jirta laga yaabaa aqoon darro marka la isticmaalayo kiimikada waxaa ognahay kiimikada wuxuu leeyahay dosage uu leeyahay sidoo kale wuxuu leeyahay wax loogu talagalay oo muxuu ahay oo in la balance gareeyo ay tahay haddii noqoto solutionka iyo haddii noqoto daawada in la balance gareeyo marka qaar waxaa dhacaysa in beeraleyda ayaga oo dhahay waxaan la dagaalamayna cudur inay kiimikada ka badiyaan ama sunta ay ka badiyaan dalagina inuu iska yahay qudaar oo kale inuu kadib dalaga uu gubto ay ku qasaaraan oo kale waxay kamid tahay dhibaatooyinka aqoon darrada kamid ah badanaa waan kala tarinaa oo waxaan siinaa consultation markasto waxaa jiro instruction la raaco instructionkana wuxuu ku qoran yahay markaas daawada aad gadanayso way ku qoran tahay haddii noqoto mid solution haddii tahay way ku qoran tahay oo inta liitar la isticmaalayo inta solution inta la rabo in daawadan looga isticmaalo way ku qoran tahay badanaa waan kula tarinaa oo maadaama uu hadda xalka ugu fiican hadda aan sameyno uu yahay ama ay beeraleyda ay sameyn karaan uu yahay inay isticmaalaan kiimikalka marka kiimikalka saas oo kale ayaan kula talina ayagana inay sameeyaan oo aysan iska isticmaalin waa kartay ugu dambeyntii maxaa halkan talo aragtiyo maadaama aqoonyahanadii aad tihiin iyadoo laftirkeedu la idinka rabo in wacyigelintaas oo kale aad samaysaan oo beeraleydu aad inta badan tusaan halka xalka uu ka jira iyo wax soo saarka sidii loo qurxin lahaa isla markaana loo kordhin lahaa wax soo saarka gobolka maxaa halkan talaa ugu jeedin lahayd guud ahaan beeraleyda Soomaaliyeed
waa maasan tahay dhammaan iskaashatooyinka gobolka Shabeellaha Dhexe guud ahaan mid Hirshabeelle waxaan ku amaanaya horta dadaalka wanaagsan ee wadaan oo ay qayb ka yihiin wax soo saarka dalka haddii aynan qayb ka ahayn waxaan qiyaasayaa wadanka halka uu joogo inuu ku sii dari lahay oo wax soo saarku wuxuu ka mid yahay wax ugu horeeya nolosha iskaashatooyinkan waxaan baa ku darayaa in maadaama ay yihiin iskaashato in iskaashi ay sameeyaan marka hore ayaga laftarkooda inay isku xirnaadaan laftarkooda inay sameeyaan muxuu ahaay dalagyo midaysan iskaashato waxay qayb qaadan kartaa in qiimaha suuqa inay awood ku yeeshaan ama market price inay awood ku yeeshaan ayay sameyn karaan waxay sameyn karaan inay ganacsiga qayb ka qaataan dalaga ileen haddii iskaashatada ay maanta midooba ay dhahaan waxaan soo saaraynaa bariis waxay awood u yeelan karaan inay suuqa bariiska ay la wareegaan haddii dhahaan waxaan soo saaraynaa qudaar inay soo saaraan qudaartii way awood u yeelan karaan inay suuqina ay qabsadaan marka waxaan kula talinayaa dhammaan iskaashatooyinka inay marka hore inta midoobaan ay shiraan ay dhahaan ay kodolada samaystaan ay dhahaan amba even iskaashato walba in la yiraahdo iskaashatadan iskaashatayba la soo saarto waxaas iskaashatayba la soo saarto waxaas iskaashatayba la soo saarto waxaas si uusan u imaanin macnaha haddii dhammaan iskaashatooyinka haddii hal mar u wada jeestaan ama qof walba wuxuu rabo oo soo saarto waxaa dhici karta isbeecjibin in iskaashatadan haddii soo saarto bariis mid kale bariis tacabto waxaa laga yaabaa inuu qiimihii input cost inuu hoos u dhaco qofkan uu khasaaro ku yimaado laakiin haddii iskaashataan soo saarto bariis oo kale mid kale soo saarto galey mid kale soo saarto sisin mid kale soo saarto digir iskaashatada waxay sameynaysaa faa'iido ayay sameynaysaa iskaashataan soo kale faa'iido ayay sameynaysaa bulshadana waxay u tahay faa'iido ayay u tahay ileen iskaashatada waxay soo saaraysaa wax fara badan ay soo saaraysaa waa dad fara badan boroti fara badan ay soo saarayaan borotiga fara badan kadib wuxuu ka caawinayaa in qiimo jaban lagu iibso ileen hadda marmar waxaa dhacdo marka iskaashatooyinka waxaa kula talinaya tusaalahan oo kale in hay-adaha inay intixiir la sameeyaan sida hadda aan warka ku hayo WFP waxay heshiis la gaartay cooperativeska ama iskaashatooyinka waxayna ballan qaaday in wax soo saarka dalka inay iibsan doonto haddii ay noqoto inay macaawin ay bixinayso ama ay dhamaan gargaar ay bixinayso marka haddii dadaalkaas waxaa u arkaa in arrinkaas inuu fursad weyn yahay fursadaasoo kalena inay ka faa'iidaystaan ileen qofka markuu wax soo saar uu soo saaro suuqa u baahan yahay marka fursadaasoo kale waxay tahay suuq waay in iskaashatooyinka ay dhahaan anaka waxaan soo saaraynaa waxa loo baahan yahay inta tan ay tahay inta quality ay leh oo u baahan tahay WFP anaka ayaa soo saarayno ayna ka midayaan in la yiraahdo WFP waxayna la gashiisiis macnaha mana laga fulin marka waxaan rajaynayaa arrimaha noocaas oo kale ah fursaday u tahay dhammaan iskaashatooyinka inay ka faa'iidaystaan ay sidoo kale ay WFP iyo haddii noqoto FAO waxay bixi karaan ayaga laftkooda waxay bixi karaan abuureen bixi karaan beeraley kale oo yar ama small holders ayaa jiro abuuray bixi karaan oo tayo leh waxay dhoofin karaan waxay soo saareen oo kale waxay ka iibsan karaan WFP iyada oo macnaha dib loogu sii celiyo waxay sameyn karaan inay leeyihiin baqaaro ay ka dhigtaan wixii food security ay wixii ay keediyaan si bari ka maalin haddii loo baahdo dalkaas oo kale haddii noqdo in la dhoofiyo haddii noqdo in dib loo isticmaalo suuqa xilliyada qaar waxaa dhici karto cimilada la isku mahlay karto uncertainty iska jirto mar waxa dhici karta la iska qasaaro cayaano ay dhacaan wixii lagu qasaaro dalagii oo dalag loo baahnay aan la soo saari karin marka waana arrimahaas oo kalena waa ku dhiirigelinaya sidoo kale waxaan baa qudariyaa haddii ay rabaan in ay wax soo saarkooda ziyaadiyaan waxaa jira waxyaabo badan dhiirigelin karo oo tusaale ay ka mid tahay financial institutionska haddii noqoto bangiyada haddii noqoto NGO-yada in inta ka faa'iidaystaan ay balaano samaystaan in la maalgeliyo haddii la maalgeliyana waxay ka qayb qaadan kartaa in ay wax soo saartaan ileen iskaashatooyinka qaar laga yaabaa in macnaha dhaqaale ahaan haddii ay yara liitaan macnaha waxaan kula talin lahay in institutionada oo financialka inay la tagaan inay ka qaataan haddii noqoto amaah haddii noqoto waxyaabo kale oo ay jiraan mushaaraka jirto dhowr nooca jirto inay ka faa'iidaystaan ayadana waa kula talin lahay waa mahadsan yahay aqoonyahan Suleymaan oo kamid ah aqoonyahanada gobolkan Shabeellaha Dhexe waxa uu soo bartay waan filayaa aragtiyo talooyinka uu u jeediyay iskaashada beeraleyda iyo guud ahaan beeraleyda inay ka faa'iideysan doonaan aad baan kaga mahadcelinayaa aqoonyahan sida quruxda barnaamijka aad nala wadaagtay iyo sidoo kale aragtiyo talooyinka u jeedisay beeraleyda anigoo Cabdiraxmaan Cali Diiriye barnaamijka waan idin soo jeedinayay iyadoo dhanka kaamirada uu naga caawiyay Liibaan Lakimaan waxaan u mahadcelinayaa aqoonyahanka waan leeyahay aragtidaadu ay noo muhiim waad ku maasan tahay sida barnaamijka aad nala wadaagtay iyo aragtida aad ku biirisay beeraleyda waa bahdii barnaamijka beeraha iyo xoolaha oo idin la sida ay nabadgelyo amaana Allah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh